bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal halkani waa xarunta dhexe ee telefishinka iyo raadiyaha qaranka ee magaalada muqdisho kuna soo dhawaada barnaamijkii kulanka toddobaadka oo toddobaad walba aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed Somali National TV sidoo kale aad ka dhegeysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya toddobaad walba waxaan barnaamijka uga hadalnaa dhacdooyinka ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkaas ka taagnaa gudaha dalka iyo dhacdooyinka kale ee la xiriira caalamka waxaana hadba ku casuulnaa mas-uulka mudan ka jawaabista su-aalaha la xiriira sheekada toddobaadkaas ugu xiisaha badneyd toddobaadkan barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa waxqabadka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida laba kiis oo maxkamaddu ay qaaday iyo sheeko kale oo la xiriirta howlaha maxkamaddu ay qabato waxaana ka qayb galaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ku soo dhaw mudane waa mahadsantahay ku dhaw aad mahadsantahay idinkuna waxaa kaga qayb qaadan kartaan qadadka taleefanada shaashada ku qoran waxaana kasii afiifanaya daawadayaasha barnaamijka doonaya inay kasoo qayb qaataan ama dhegeystayaasha marka la gaaro qadadka taleefanada inay si toos ah ugala socdaan gacanka ama taleefanada oo ay ka fogaadaan codbaahiyaasha ay kala socdaan barnaamijka soo dhaweyn kadib waxaad nala wadaagtaa howlihii ugu muhiimsanaa ee toddobaadkan maxkamaddu ay qabatay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin aadaa u mahadsantaha runtii sharmaake maxkamadda ciidamada qalabka sida ama garsoorka ciidamada qalabka sida guud ahaan sida looga bartay wuxuu ku jiraa shaqooyinkii loo xil saaray oo loogu talagalay wuxuuna ka shaqeeyaa gobolada inta badan dalka waxaa isbuucii lasoo dhaafay sida caadadu ahayd shaqooyinkii qaban jireen ay qabteen waxaa la qabtay waxaa kamid a kiisaska hadda ay weydiinayso waxay kamid yihiin waa qayb kamid a isbuucan hawshii la qabtay sababtoo ah garsoorku markii laysku daro qaybaha uu ka shaqeeyo celcelis isbuuc walbo wuxuu xaliyaa 6 kiis ilaa 7 kiis uu xaliyaa kiisaskaas waxay isugu jiraan kuwa ay galaan ciidamadu iyo kuwa ay galaan kuwa nabadiidka ay galaan sida falalka argagixisada shabaabka ay sameeyaan oo kale garsoorka asagoo shaqadaas gudanayo waxaa isbuucan la soo saaray xukunno kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ay ciidamadu galeen gaar ahaan qaybta ciidan dilkii allah u naxariistay Cabbaas Siraaji ee go'aanka maxkamadda ka soo saartay isbuucan bilowgiisii waxay kaloo soo saartay kiiskaas waxaa lagu eedeynaya dad ciidamada ka tirsan waxaa kaloo jira go'aano fara badan ay soo saartay oo ugu dambeeyay kii dolaad ay soo saartay oo la xiriiray fal ay geysteen kuwa nabadiidka ah al-shabaab oo asna loo geystay wadaad runtii ku jiray salaada taraawiixda bariga magaalada Baydhabo masaajid ku yaal lagu dilay asigoo ku jiro salaada taraawiixda dadkii dilay cidii gacanta lahayd iyo cidii ranta ku caawisay waxaa la horkeenay garsoorka ciidamada qalabka sida waxaanad aragteen runtii kulli go'aanadaas intooda badan waxaad ka aragteen ama qayb kamid ah waxaad ka aragteen waxaan la wadaagnay warbaahinada si ay ula socdaan shaqada ay maxkamaddu ciidamada hayso marka kaas ugu dambeeyay wayna wada shaqadeeda sidii loogu talagalay wada waxaa jiray kiis xiiso badnaa oo hadalhayntiisu aad u badnayd oo ku aadanaa dilka allah u naxariistay wasiirkii wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka marxuun Cabbaas Siraaji doodiisa marxaladii ay soo martay iyo halkii ku dambeysay kiiskaas runtii marka uu dhacay isla habeennimadii waxaa la xiray dad gaaraya ilaa 4 eedeysan afarta eedeysan ee la xiray baarista markii ay bilaabatay kadib laba kamida markii baarista soo gabagabowday ayay waxay ku bixeen baaristii si maadaama lagu waayay inay lug rasmi ah ku lahaayeen waxaa loo soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta 2 qofood asagana wuxuu soo gudbiyey 2 qofood wuxuu soo gudbiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida sidaas ayay ku dhageysatay maxkamaddu ku bilaabatay dacwadeedii dacwadaas waxay socotay muddo dheer ilaa ay tiri 3 jeer waa la dhageystay oo garsoorka horgeynta laga soo bilaabo ilaa ka gabagabadii maxkamadeenta markii laga soo bilaabo markii celcelis saacadaha la dhageystay waa 12 saacadood yaa dacwadaasi la dhageysanaya waxaan filaa haddii la dhaho kasoo bilaaw meeshii xilligaas ilaa hadda iyo waqtiga haysan inuu is waafaqaynin aan filaa ugu dambeyntii waxaad la wadaagnay warbaahinta iyo dadka Soomaaliyeed go'aankii oo maxkamadda ugu dambeyn noqday in mid ka mid ah 2 qofood oo la keenay oo mas'uulka ahay dhimashadii Cabbaas Siraaji halka midka kalena maxkamaddu markii loo ujeediyey iyo dooda dhinacyada ay dhageysatay ay ku weysay dembigii saas darteed ay sii daysay meeshaas ku dambeeyay asigana waxaa jiray hadallo iyo dadku ay isla dhexmareen ku aadan inaad sii shaaciseen
cidda la dilayo cidda la cafinayo maxaa taa ka jira waa su-aal muhiima runtii annaga waxaan nahay garsoorka ciidamada qalabka sida garsoorka ciidamada qalabka sida markaa sababka markaad garato layaabkaa kaa baxayo garsoorka ciidamada qalabka sida shaqooyinkiisa waxaa ka mid a marka koowaad inuu wacyigelin u sameeyo ciidamada qalabka sida ciidamada ammaanka inuu sameeyo oo kala hadlo dhibaatooyinka markaas taagan oo u sheego dhibaatadaas cidda samayso natiijada ka dhalinaysa inuu u sameeyo waxaa ka mid a inuu ku ilaaliyo anshaxa iyo habdhaqanka wanaagsan ciidanka inuu ku ilaaliyo ugu dambeyn waxaa ka mid a inuu go-aan ka soo saaro dembiyada ciqaabtaha iyaga lagu eedeynayo ma jirto anaga wax aan mataqaana aan ka dan lahayn ma jirto eedeysanaha la eedeynayana waa muwaadin qofka la dilana waa muwaadin keliya waxaan sheegnay oo haddana ku celinaynaa dembiyada ay ilaalada mas-uuliyiinta wadaan sida aan sheegnay waa kuwa labaad dalka marka loo fiiriyo qaraxyada iyo kuwa nabadgedka waxay sameeyaan marka laga soo tago waa dembiyada labaad oo dhibaatada dalka ku hayo waayo taasaan ka dignay waana ka digayna waa ku celinaa dadka ilaalada ah oo mas-uuliyiinta wadaan marka ay marayaan wadooyinka laamiyada ama jidcadayaasha waxaan u sheegaynaa qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ku hor socdo haddii uu kaa horeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu gadaashaada socdo haddii uu kaa dambeeyo haddii aad dhibaato ku gaarsiiso maxaad ii daba socotaa ama maxaad ii hor socotaa haddaad dhibaato ku gaarsiiso ciqaabta ka dhalata dhibaatada aad geysato waxaa qaadaya cidda dhibaatada geysataa qaadayso warkaas inuu cad yahan u malaynaa waan ku celinaynaa arrintaasi waxay ka mid tahay wacyigelinta dembiyadu garsoorka ciidamadu wuxuu leeyahay ka hortagga dembiyadu oo ah in qofka dembiga uu galaayo wax ka dhalanayo loo sheega marka hore si hadhowda marka uu galo loogu qaado arrintaasi waan ku celinaynaa ciddii geysato muwaadin dhibaato uu geysato waa ay hor socotay ama waa ay daba socotay aad u geysato muwaadinka si xor ah oo nabada inuu ku daba socdaa si xor ah oo nabada inuu ku hor socdaa waaye muwaadinka laamiga iyo jidcadaha xaqa uu leeyahay inuu maro cidda u gaftaa oo dhibaato u gaarsiisaa maxaad ii daba socotaan ama maxaa ii daba socotaan maxay hor socotaan waxay maxkamaddu iyo garsoorka ciidamadu u sheegayaan inuu mas-uuliyadda ka dhalata asiga qaadi doono waa gartay baydhabo ayay ka soo noqoteen waxaadna qaadeen kiiskii dadkii ka dambeeyey allaha u naxariistay sheekh madgaab madeero ee caliyow dadkii dilay ayay qaadeen kiiskaas sidee u dhacay runtii kiiskaas kiis ayaan darnu ahay dadkii geystay dad dhibaato badan ay ahaayeen nin wadaad ahay weliba wadaad dhalinyaro ahay oo ka tirsanay masaajid la yidhahdo masaajidka sheekh aadan madeer sheekh aadan warshikh masaajidkaas horta marka hore halkan kaaga hadlo sheekha naftigiisa oo loogu magac daray masaajidka oo marka la dhisa loo dhiibay waxaa sanadkan bilowgiisii dilay kuwa nabadiidka ahaa dileen wadaadkan hadda la dilay wuxuu ka mid ahay ardaydii oo sheekhaasi waxbaraya ka mid ahay dadkii masaajidka gacanta ku hayay iyo dadkii iyo asaga waxay ka mid ahaayeen sheekhaasi dadka oo waxbaray oo ka mid ahay waxaa dhacday salaada 15 bishan asigoo salaada taraawiixda ragcada saddexaad u taagan oo weliba ku beegan imaamka salaada dujinaya ku beegan wuxuu ahay wadaadka macallin dugsi quraan u ahay wuxuu ahay qof xaafid ah oo qaari quraan ah si imaamka haddii ay dhacdo in imaamku uu gafo salaada uu sheego mataqaana aayadda uu gafo uu sheego iyo wuxuu u daba taagnaa meesha ragcadii saddexaad iyadoo lagu jiro yaa waxaa soo galay nin runtii mataqaana sababta aan la yaabnay ficilka uu sameeyey asiga uu sujuudda ku jiro ragcadii saddexaad ee taraawiixda iyo wuxuu kuga dhiftay madaxa jeegada dambe xabad kaga dhiftay taas oo kaliftay inuuna kasoo kicin madeyr madgaab allah u naxariistay sujuudi uu ku jiro oo ku geeriyooda halkaasi intaa kadib ciidamada ammaanka waxay baareen oo su-aalo weydiiyeen dadkii goobjooga ahay waxaa la aqoonsaday qofkii waxaa la soo xiray qofkii markii la weydiiyey kadibna wuxuu sheegay inuu wadaadku loo diray inuu dilo amra lagu siiyey meel hareeri kaambiyow la dhaho oo dee hareeri kaadiyow la yidhahdo oo baydhaba ka fog amar laga soo siiyey wadaadkaas inuu dilo loona sheegay inuu ergada ka tirsanay soo dooratay xildhibaanadii dowladda saas darteed uu ku dilay ayuu sheegay iyadoo weliba lagu qabtay hubkii uu ku dilay iyo kuwo kaloo dheeraadho bambo iyo lagu soo qabtay inuu isaga oo mas-uulka ahay lagu soo qabtay saddex qof ayaa maxkamadda la keenay oo eedeysanayaal ahaa laba xabsidaan ayay maxkamadda ku xukuntay midna ay dil toogasho ah sharciyan markii la eego ninka dilka geystay iyo ninkii fududeeyey ma kala sokeeyaan miisaan cadaaladeedka aad saarteen muxuu ahaa su-aal fiican waay waxaa la yidhaahdaa mar haddii mubaashirka iyo mutasabibka ay kulmaan يعني يصار الحكم الى المباشر قفك
aniga marka aan dhibaato geysto adigana aad igu caawiso dhibaatada waxa gacanta cidda ku geysata maadaama ay dhibaato gacmeed tahay oo ninkan xabad oo fartiisa kalida ay tahay baasha qof kasta dembiga intuu ku ekaysta in lagu ekeeyo waajib waay qofna wuu abaabulay laakiin wuxuu ka gaabsaday inuu asiga gacantiisa ku fuliyo ka baqday qofna wuu u bareero wuu fuliyey dee qofka intuu asiga ku ekaaday in loogu ekeeyaa cadaaladda sheegaysa in lagu ekeeyaa saas darteed waxaan u aqoonsanay mataqaanaa qofka gacanta lahay oo masaajidka inta gudaha u galay dilay qofkii wadaadkii salaad ku jiro waxaa loo aqoonsaday inuu yahay qofka mubaashirka ahay mas-uulna ka ahay dilka gacanta asagana ay mataqaanaa aan saarnay macnaa ciqaabtii dilkaas ka dhalatay halka kuwii kale oo ku kaalmeeyey ama mataqaanaa soo qaaday ama sii qaaday ama qariyey ay mataqaanaa iyagana mas-uul ka ahaayeen ciqaabta oo la yiraahdo markii la fiiriyo ciqaabaha la xukumo naftigooda waxaa la yiraahdaa ciqaabaha waaweyn capital punishment-ga xabsi daa'imka iyo dilka waa iska daba dhow yihiin ama waa isku mid markii standardka caadiga dhanka loo eego laakiin qofkan waxaa loo arkaa mubaashir qofkan waxaa la orka caawiyey qof kastana dembigiisa meesha u ekaa in lagu simo garsoorka saas uu aaminsan yahay dee go-aanada maxkamadda markasta ka soo baxana waxaa ka furan in racfaan laga qaataa dad badan oo garsoorka Soomaaliya qeybihiisa kala duwan naqliya ama tilmaama in hanaanka cadaaladda wax badan ay mugdi ku jirto waxay ku eedeeyaan dadka eedeysanayaasha ah inaydan u qaban sida uu xaq u leeyahay qofka markuu dambiile yahay oo criminal u yahay wuxuu xaq u leeyahay in qareen loo qabto u difaaca dembigiisa dawladuna xaq u leeyahay dadka criminalka ay la soo qabtay ama dambiilayaasha lagu faldambiyeedka lagu soo qabto inaydan u qaban qareenadii xaq u lahayd inay difaacaan oo aad u qabataan qareeno marka gacantii saddexaad oo kale ama junior ah oo tababar dhawaan ka soo baxo oo kale horta arrinta la xiriirta qareenka waa arrin sharci ah garsoore maxkamadeed ama gudoomiye maxkamadeed sidoo raba kama yeeli karo waa arrin dastuuriya waay qareenka qofka markii dembi lagu eedeeyo oo la dhaho dembigaasad u xiran tahay wuxuu xaq u leeyahay inuu qareen helaa qareenka waa kaalmo sharci kaalmadaas sharci haddii uusan qabsan karin qofka qareen uu qabsan karin waxaa qasab ah dawladdu inay qabataa kiisaska hadda aad sheegaysid oo hadda aan ka sheekeyn isbuucan dhacay qareenada ay qabatay xitaa hal qareen lama qaban laba qareena loo qabtay ku eedeysanayaasha waxaa cusub mudan eedeysanaha naftigiisa inuu soo eedeysanayaasha qaarkood laftigood inay soo qabsadeen qareeno ilaa 5 iyo 6 gaarayo ay soo qabsadeen ay ka qayb galeen dacwadii ay ka qayb galeen marka arrinta qareenka waa arrin dastuuriya qodobka 30 eedeysanaha xuquuqda uu leeyahay dastuurka tilmaamayo maxkamaddu ama qareenku ma yeeli karo sababtoo ah dacwo hufan oo cadaalad ah ma dhici karayso haddii aan la helin cidda eedeynaysa qareenka iyo cidda eedeynaysa eedeysanaha oo xiraalintii ah iyo cidda difaacaysa qareenka eedeysanaha oo qareenkii ah iyo maxkamadii oo u dhaxaysay labada doodood u dhaxaysay oo qoortii labada garab u dhaxaysay waa leedahay maxkamaddu haddii aan la helin cadaalad iyo hufnaan iyo maxkamadeeba meesha ma jirayso waxay noqonayaan meel afduub hayba noqonayaan macnaha isku dheelitirka waxaan ognahay xeer ilaalintu waa dembi oga waay difaacaha iyo dembi ogaha inaysan isku dheelitirnayn waa tan dooda ka taagan tahay waa isku dheelitiran tahay sababtoo ah in isku dheelitiraa waa arrin dastuuriyahan ku leeyahayba qareenka in loo qabtaa weliba waxaan u qabanaa laba qareen oo marka qaarkood hal qareen uma siino maadaama qofka markuu hal aysan ka badan arrinta dooda qareenada ku saabsan iyo xukunada maxkamadaha waan usoo noqonaynaa waxaan jecelnahay inaan fursadaha la wadaagno daawadayaasha dhegeystayaasha ee tv-ga iyo raadiyaha qaranka daawadaha ugu horeeya qad ku jira halo asalaamu calaykum walaala magacaaga iyo halkaad joogta cabdicasiis ibraahim cabdallah la yidhaha waxaan joogaa badsuwaada magaalada caasimada khabroon cabdi casiis barnaamijka haddaa la socotay su-aal iyo talo iyo barnaamijka waa la socday waa marka laakiin waxaan la yaabanahay jawaabta uu bixiyey ninka ciidanka sarkaalka ee oranaya masalan qofka biniaadamku miyaanu dembi ku lahayn saddexda nina la qabtay ninka gacanta ku dilay maa labada kale nin kamid ah wuxuu caddeeyey in uu ahaa ninkii sahanka sameeyey amroni in la dilo marka amarka aan bixiya adiga qofkan hala dilo aan ku bixiyo waxaa laga soo qaadayaa inaana ninka anigu dilin cabdicasiis horta qofka barnaamijka ka qayb galaya waa mas-uul dowladeed waa gudoomiyihii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka siday waa gaashaamo sare ee xoogga dal ka tirsan marka hadallada soo jeedinta laftirkooda in aan asluubeyn way qurux badan tahay waxaana fursad ku siinayaa su-aashaa toos inuu kaaga jawaabo gudoomiyuhu amarka bixiya hala dil jawaabta dhegeyso cabdicasiis jawaabta dhegeyso hadaata waa sharaxnimo umalaynaa qofka
qof caafimaad qaba oo fiyow markii la dhaho qofkan soo dilo dhaho oo asaga inta baxo soo dilo qofkan kale wuxuu iska ilaalinaya iska ilaaliya saa laga rabaa arrintaani waa arrin dee sharci iyo wax qusaysa waaye ma aha arrin aragti qusaysa ma aha qofka dembigiisa dembi aanan ahayn wuxuu rabay saas inuu sameeyo darteed looma dili karo qofka cabdicasiis waxaan jeclahay su-aashaas inaad si waafiya jawaabteeda u heshay waadna mahadsan tahay daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa waxa laga hadlayo waa arrin sharci la xiriirta inaynu aragtida iyo sharciga aynu kala saarno waa muhiim aragtidiinana waa u madax banaantihiin inaynu asluubeyno su-aalaha iyo habweydiintana waa wax anaga dhan loo wada wanaagsan waad mahadsantihiin daawadaha kale qad ku jira alo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah walaalle magacaaga iyo halkaa joogto walaal magacaygu waa cabdirasaaq waxaana ku suganahay degmada howlwadaag cabdirasaaq degmada howlwadaag gobolka banaadir aad iyo aad okay soo dhawow barnaamijka haddaa la socotee waan la socdaa waan salaamayaa cabdirasaaq waan salaamayaa taliyaha waana la socday barnaamijkuna waa barnaamij fiican inta badan eedaysanayaasha soo bandhigo waxaan ka fiirsanaa telefishinka marka qofku si inta badanna waxaan aragnaa wixii la akrinayo leeyahay qoraalka asagaa qirtay intaasaa lagu soo oogay maxaa diidaya in maaragtay eedeysanayaasha aan sirkooda keliya aana la tusine lala tuso codkooda ayagoo hadlaya wax qiranaya maxaa diiday gaawt hadalkii waa la jaraya keliya muuqaalkooda keliya la tusaya qofkii adaana u hadlaya adigiina waxaa tahay ninkii sirtooraha wax xugminaya inaad tira ninkaan dembigaas wuu qirtay wuu galay wuu sameeyey ninkii oon hadlayana aan la arkin macnaha sidee lagu aamini karaa aan kugu aamini karnaa shacabku ay ku aamini karaan gaawsmiyada soo bandhiga dadkiioo hadlaya okay cabdirasaaq mar kale waxaad nasiib u yeelatay inaan toos kuu siiyo inuu guddoomiye kuu jawaabo sidee laydinku aamini karaa muhiimadda ugu weyn waa su-aashiisa sidee lagu aamini karaa si fiican su-aal fiican arrinta la xiriirta inuu qofkan dembiga qirtay iyo inuusan qiran waa sidii arrintii hore oo arrin sharciya qodobka 68 xeerka habkaa tilmaamayo qofkan markii la dhihi karo dembiga waa qirtay iyo marka aan la dhihi karin shuruudo iyo waxaa u yaalo iyo mataqaanaa habab loo raaca ataalo qofkan garsooraha laga dhigay waxaa lagu aaminay waa inuu cadaaladda sameeyaa waayo eedaysanihii marka la hor keeno oo weydiiyo dembiga oo dhaho mataqaanaa dembigaasi waa galay oo dhaho tusaale ahaan qiraashada hal hadda ka hadlaynahay wuu ka diiwaan geliyaa garsooraha wuu ka diiwaan geliyaa sida wax u dhicin asigoo eedaysanaha ka dhigaysanaya oo aan horkicinin ama aanan qasbaynin aan horkicin eedaysanaha waxaa xusid mudan markii su-aalahaas la weydiinayo ma aha qof xiran ma aha qof mataqaanaa hubla la hortaagan yahay ma aha qof la handiraya ma aha wuxuu hortaagan yahay garsooraha waxaana loo sheegaa raadka ka dhalan karo hadalka uu sheegayna waa loo sheegaa waxaan rabaa marka qofka markii uu garsoorku dhahayo wuu qirtay dembigaasi waa la helaa waxaa la helaa dokumentigii uu garsooraha markaasi la saxiixay oo asaguna saxiixaa la helaa oo galkii ku jira macnaha ma aha keliya in la dhahayo markii la weydiiyo garsooraha intuu ka keento warkaa la dhaho wuxuu leeyahay waa kana waxaan u qoray hab waafaqsan sharcigii markii laisku eego qoraalkaas u qoray haddii iskhilaafaan xitaa qoraalkaas ma naqanayo qoraal lagu diiwaangeliyo inuu qirto mataqaanaa eedaysanaha okay waa mahadsan tahay qaadka kale halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة magacaaga walaalay halkaa joogto magacaygu waa yuusuf sheekh maxamed oo jooga dalka koonfur africa yuusuf soo dhawow barnaamijka haddaa la socotay su-aal iyo talo aad iyo aad barnaamijka waan la socday gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad xasan cali nuur shuute waa salaamaya adigana waa ku salaamaya waxaan jeclahay in aan laba su-aalood weydiiyo maxamed sheekhow yuusuf sheekh maxamed yuusuf gudagal walaale aad iyo aad aa umahadsan tahay waxaan jeclaha horta in aan weydiiyo gudoomiyaha su-aasha koowaad waxa ay tahay gobolka shabeellaha dhexe inta badan khaasatan hadda aniga degmada aan kasoo jeeda ee maaday inta badan waxaa laga cawdaa ciidamada dawladda inay dadka ku dhibaateeyaan maxkamadda ciidamada qalabka sidana wax hadda gaara oo ay ka qabato ma muuqato sida gobolada bay iyo bakool iyo shabeellaha hoose banaadir ay wax uga qabato oo kale waxaan jeclaan lahaa gudoomiyaha inaan weydiiyo maxaa keeni kara in dadka
ciidamada ay ku dhagaateeyaan gobolka shabeellaha dhexe khaasatan degmada Mahaday iyo agaaskeeda aan maxkamadda waxba aysan ka qaban. su-aasheeda labaad waxay tahay maadaama aan nahay dadkii burburkii kadib dhashay oo wax badan aanan wax ka fahamsanayn inta badan waxaan daawadaa marka uu xukunka ridayo aayadda qur-aanka wuu soo qaataa 100% waa diinteena islaamka oo aan la tahay in aan ku dhaqanno. marka waxaan doonayaa in uu ii fasiro guddoomiyaha. waxaan maqlaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed muxuu yahay tacriif ahaan? ma xeer Soomaali ku heshiisay oo aan isku ciqaabna tiriba? ma wax diinta islaamka waafaqsan? waa tacriifkiisa. yuusuf xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo labada su'aalood baan faahno mahadsantahay. daawadaha kale qad ku jira. halo salaamu calaykum. halo salaamu calaykum. halo salaamu calaykum. walaal magacaaga halkaad joogto iigu celi. waa ka xumahay daawadahaasi qadka ayaa ka go-ay. qadadka teleefanada waan usoo noqon doonaa. jawaabtii labadii su-aalood hadda uu soo weydiiyey yuusuf sheekh maxamed. yuusuf oo koonfur afrika jooga aada u mahadsan yahay. shabeellada dhexe waxay ka tirsan tahay dowlad goboleedka hirshabeelle. waxaa loogu talagalay maxkamad la yidhaahdo qeybta 21aad oo ay wadaagaan dowlad goboleedka kale ee galmudug. waxaa ka shaqeeya maxkamadaasaa loogu talagalay inay ka shaqeyso dembiyada ka dhaca shabeellada dhexene. waa kuwii ugu badnaay hadda isbuucii lasoo dhaafay aan xukunay oo go-aana ka gaaray garsoorka uu ka go-aana ka gaaray. dad lala xiriirinaya inay mataqaanaa dadka dhibaateynayaan oo burcad yihiin oo laga soo qabtay gobolka oo qaarkood meediyaha la tusay. waxay kamid tahay mataqaanaa go-aanadii hadda dhow la gaaray ay kamid ahaayeen xukunadii isbuuc lasoo dhaafay la gaaray kamid ahaayeen. markii maxkamaddu way mataqaanaa way ka shaqeysaa gobolkaasi. dadka maxkamadduna uu kubaalo maaha waa in loo dacwoodaa hebel aa dhibaato igu haayo waa in la dhahaa si hebelkaas taliyaha u taliya loogu diro oo loo keen la dhaho. markaas kadibay maxkamaddu ay go-aan soo saari kartaa. qofkii kale oo lagu qabto asigoo wado taagan oo ummadda dhibaateynayana ciidankii heegan u ah oo soo qabto oo gobolkaasi mataqaanaa dhowrka isbuuc sidii madaxweynaha ugu dhawaaqay in isbaarooyinka la qaadayo waxaa laga soo qabtay dad 10 ka badan oo maxkamaddii la saaray go-aanna laga soo saaray. arrinta la xiriirta ee go-aanka aayadaha annaga dad Soomaali haddaan nahay dhaqan ahaan iyo caqiide ahaan waxaan nahay dad islaam xitaa marka laga taga arrintaasi dunyadu waxay ku dhaqantaa waxa ay qoratay ku dhaqantaa. annaga dastuurka yaga oo hadda noo qoran waxaa ku yaala qodobkiisa 2 islaamku inay tahay diinta dowladda. diinaan islaam ahayn sharci aan waafaqsanayn shariicada islaamka aan la soo saari karin dalka. mabaadi'da guud iyo maqaasideeda shariicada maqaasideeda waxaan waafaqsanayna inaan sharci looga dhigi karin. saas darteed markii garsooraha maxkamadda joogo waxaa ka mamnuuca in wax aan waafaqsanayn sharciga islaamka oo xukumo waa ka mamnuuc. waxaa laga yaabaa dadku inay qodobada ay madaxa weeriyaan. qodobka waxaa ku qoran oo markii ninkii nin dila oo kas u dila waa la dilaha ku qoran. taasna diin islaamka hor imaamayso. af Soomaaliya ku qoran haddaan laga raacaynin diin islaamka hor imaamayso. marka tusaalahaan qofka dilka marka lagu xukumayo qodobaa la sheegaa soo maaha. qodobkaasi waxaa ku qoran qofka qof dila oo kas u dila waa la dilaa. arigaas Soomaaligaas inuusan ka hor imaahayn diinta islaamka ila tahay. saas waaye macnaha wax iskhilaafsan lama xukuma. xeerka ciqaabta waxa khilaafsan shariicada islaamka oo ku jirana garsooraha uma banaana inuu adeegsado wax ku xukumo uma banaana. okay waad mahadsan tahay. arrimahan waxaa jira garsoorka maxkamadaha marka laga hadlayo guud ahaan garsoorka dalka Soomaaliya marka laga hadlayo hay'adaha cadaaladda waxa la sheegaa si dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin inaysan capacity laga rabaysan lahayn awoodii laga rabaysan lahayn xilligan habka baaritaanka habka dacwadaha ay u dhacaan marka laga hadlayo. dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan in qof maxkamadda ciidamada gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida inuu qof dil ku rido ama xabsi ku rido inuu ku xiran tahay hadba jeebkiisa intuu leeyahay. maxaa kaga jawaabaysaa? su'aal fiican waaye. annaga horta garsoorka ciidamada la yiraahdo garsoorka dhan ka tarjumi karo. qaybta ciidamada waa qaybta ciidamada la yiraahdo. garsoorka ciidamada annaga markaan arin shakhsiyan hadda ku horfadhiyo markaan la qaadanayo ku soo sheego waxaan ahay qof sharci ka baxay jaamacad ka baxay inta aan la qaadan ka horna
sanad iyo bar ilaa 2 sano waxaan ku jirnay tababar oo weliba dowladda Soomaaliya kasoorayaasheeda loo qabanayo dadka loo tababarayo UNDP-da iyo iska kaashanayaan jaamacadaha dalka iska kaashanayaan ay bixinayeen markii aan halkaasi aan loo arkay inaan munaasab u ah garsoorka saas lagu daray garsoorka arrinta capacity taas waa aad kaga hadashay maxkamadeynta markii maxkamadda la qaadayane oo maxkamadda la qaadayo capacity-geeda iyo capacity la'aanteeda dadka weynaha way u furantaa maxkamadda anaga qaadayn labada kiis hadda la soo qaadayo waxaa lagu qaaday meel fagaara ah qofkii danaynayo oo ama mataqaanaa dhibanihii danaynayo ama eedeysanihii danaynayo ama raba in ay wax ka bartaan sidii maxkamadu u shaqeeyaan way ka soo qaybgalayaan dadka garsooro markii intaasoo dad ay hor fadhido in uu waxa meesha ka dhacay waxa ahayn uu sameeyaa suuragal maaha hadduu waxaas inuu sameeyo inuu luq la galo aba kaga dhanta dadka waa markii mabda'a oo leeyahay mabda'a calaniinta jalsaadka marka laga hadlayo wuxuu qayb ka yahay garsooraha laftigiisa inuu ku xishado inuu kala sameeyo oo kala sameeyo midda kale qof in toogasho lagu fuliyaa oo qof haddii garsooruhu ay kasoo maxkamaddu ay kasoo ragasho in dad ay lacag ka qaadatay ay kasoo ragasho qof inta la soo istaago toogasha lagu xukumo lama dhihin inta la wada tir lama geeyaan sababtoo ah afka cunug xishooy Soomaalidu dhahdaa nin wax qaatay idhiiranaantaas ma lahaan isleeyahay aniga seelata midda kale dadka anagu aan maxkamadeyno garsoor ahaan ciidamada qalabka sida waa dad askar ah askarna waad og tahay mishaarkeeda iyo hantideeda intay la eg tahay askari asiga naftigiisa laga yaabo inuu shan dowlad dadka dib u gale lacagta uu anagana siinay intuu ka keenay okay marka qofka aad xukunka ku ridaan ee dilka ah sida caadiyan ah oo qofka xaq u leeyahay 30 casho oo rafaan ku qaadan karo oo maxkamadda rafaan kaga dalban karo haddii ka diido maxkamadda sare kaga dalban karo haddii ka diido madaxweynaha jamhuuriyadda kaga dalban karo madaxweynuhu wuu cafin karo ama la dili karo qofka haddii madaxweynuhu diido taas inaysan dhicin cadaaladda qofka naftirka xukunka lagu rido xataa cadaalad 3 casho u lahaa aan la sameyn isla markii xukunka lagu fuliyo arrintaas maxaa ka leedahay qofka markii xukuna lagu fulina lagu leeyahay waa qof balasoskiisa dhamaaday waa ama waqtigiisii 30 casho la gaadho rafaan qaatay rafaankii yaa maxkamadda kale inta gashay ee go'aan ka soo saartay go'aanadii la isku wada raacay waxaa la arkay qofkan inuu qofkaas mas'uul ka yahay wax jaanis oo sharci ah oo u dhiman qofkaas ma leh markii la dhaho kadib ay banaantahay in lagu fuliyo annaga garsoor ahaan garsoorka ciidamada qalabka sida waxaan kaga duwanahay garsoorka kale cadaaladda garsoorka ciidamadu waa degdeg in qofka cadaalad degdega uu helaa wacyi sababtoo ah maxkamaddu waxay mas'uul ka tahay ilaalinta nidaamka iyo anshaxa ciidamada ka saartaa ciidamaduna waa kuwa loogu talagalay inay dadka nabadooda ilaaliyaan askari marka uu qalad galo boroseeskii qofka caadiga ahay oo shacabka ay hadduu waa maraa dhaho waxaa badanaya qaladaadka kuwa kale ay gelayaan saas darteeda garsoorka ciidamo oo gaar u ah loo sameeyo oo ka duwan garsoorka muwaadiniinta dadka kale la saaray ka duwan si cadaalad degdega loo helo ummaduna ay ugu nasato askarta kale asay ka dambayso markuu qalad fool xun galo daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qadadka ku jira halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga iyo halkaa joogto أول مجيء وعمر وحنجوا بريتوريا صوب أمريكا. عمر بريتوريا سؤال برنامج هذا لا سؤال سؤالي ترى سؤال إلى أويديو حسن علو شوطة أو أقدمية محكمة الصريح واحد waxaan inaan weydiiyo qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee sanaha hadii lagu soo eeday in uu dembi galay ama uu dhibaato u geystay qof kale oo Soomaaliyeed meeqa maalmood ama bil ama waqti cayiman ma jira qofka inta maxkamadda aan la keenin ka hor xabsiga lagu sii hay karo qofkaas muwaadinka shaashada waxaan weydiiyo mahadsan tahay Cumar daawadaha kale ee qadka ku jira hadduu jira daawadaha qadka ku jira assalaamu calaykum magacaaga walaal iyo halka aad joogto waa maashantahay walaalkayga adiga gudoomiyaha dabcan maxkamadda heerka darajada koowaad xasan mushirta waa islaamiga dhama baada tiisiga qaranka markale jumco wanaagsan oo aan halkee joogtaa magacaaga san noo sheeg anisan maxamed faarax anisan la keenay dhahaa degmada yaaqshi anis xagee joogtaa degmada yaaqshi gobolka banaadir okay anis hada barnaamijka la socotay su'aali talo masha Allah su'aala wata إذا ويدينا وحدة تأثير وأغنى معناها بمشي مركو قف طبعا كتف عيدنا قلب كتير وش أجلسه عيدنا الصومالية ده محكمة وحكم قبضة أغنى تساوي الأغنى مركو قبل نسور وح أجلسان وسيد البلا وحنا قبطاو معناها محكمة ده على لسه تكسره
macnaha maxay u dhici lahaday qofka oo shacabka marka wax loo geysto in maxkamadda dabcan ama media hortiisa wax ka karto waad mahadsan tahay daawado kale hadduu jira qad ku jiro saddex ayaan isku raacinaynaa halo asalaamu calaykum daawadaha kale halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaala magacaagii halkaa joogto magacayga waa maxamed aadan cabdi. maxamed waa xaggee joogtaa walaal kismaayo joogaa. xaggee joogtaa kismaayo aan joogaa kismaayo. magaalada kismaayo barnaamijka haddaa la socotay su-aalii talo walaal waan idin salaamay horta aad baan idin salaamay adiga mas-uulka mid lamid ah mas-uulka kula fadhiyo baan rabaa su-aal inaan weydiiyo haddii la yaraado gudagal su-aasheeda waxay tahay walaal maalin walba waxaan arkaynaa dad dambiilayaal oo maxkamadda lasoo istaajinayo xukunno lagu fulinayo ma garad si wanaagsan gaar ahaan nimankan ummadda nafta u keenay dhiigooda banaystay oo meel kasta ku leynayo ku xasuuqayaan arkaynaa in maxkamadda la keenayo si wanaagsan gaar ahaan midii u dambeysay magaalada baydhabo 3 nin ee maxkamadda lasoo istaajinayo aan tv ka daawanayay waa gartay marka nimankan shabaabka ah haddii uu wax dilay iyo haddii uunan dilinba mar walba iyaga way ka go-an tahay shacabka inay xasuuqaan oo ay dhiigooda daadiyaan ma garad si loo fahmo su-aasha iisoo koob maxamed su-aasheedu waxay tahay walaal haddii nin shabaab aa lasoo qabto maxaa diidaya de isaga wuxuu doonay inuu shacab soomaaliyeed dilo dhiigooda uu daadiyo in isaga xukunkiisa uu noqdo sidii uu doonayay si lamid ah in dil lagu xukumo isaga sacan uma ugelayn ummadda soomaaliyeed waa meel walba ay ku leynayaan ku xasuuqayaan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay saddexdii su-aalood ee na soo weydiiyeen anisa iyo maxamed iyo cumar cumara ugu horeeya qofka muwaadinka oo la eedeynayo in xabsiga la geeyaa sharciga lagu geeyaa in xabsiga lagu haayaana sharciga lagu haynaa in xabsiga lagu haayo maalmaha lagu hay karo waxay la eg tahay dembiga lagu eedeynayo intuu la egyahay mar kasta oo la haynayana waa in xeer ilaalinta iyo maxkamaddu loo geeyaa waqtigiisa qoraalkiisa iyo asagaba la geeyaa si muddadaasi oo hayga karaan loogu xalaaleeyo oo meesha aysan u noqonin xabsi uu qof leeyahay aysan u noqonin marka taas mar kasta sharcigaa loo mara gabadha su-aasha ayna weydiisay mas-uul iyo shacab farqiga u dhexeeyo xagga cadaaladda farqi u dhexeeyo markii askartu ay qof mas-uul wax geysato degdeg ayaa loo canqaabaa marka shacabka wax u geystaan waxba laguma sameeya mas-uul markii uu garsooraha inuu go-aan gaada rabo wuxuu ku saleeyaa go-aankiisa wuxuu tadbiiqiyaa sharciga uu markaasi horyaalo tadbiiqiya ma u fiiriyo qofka eedeysanaha iyo qofka dhibanaha ah miisaanka oo dadka kuleeyahay ma u fiiriyo wuxuu u fiiriyaa dembigan lagu eedeynayo qofkaan ma galay amase ma gelina u fiiriya marka uu doodaha dhinacyada dhegeysta kadib waxaan u malaynaane yani maxkamadda waxa soo maray oo dacwado ah markii loo mas-uul iyo shacab lays barbar dhigo inuun mas-uulka percentage sheegaba ku lahayn anaga saasaan cadayhaynaaba al-shabaab sidii ay yeelayaan maan yeelnane maxamed dee anagu jabhad maahay dowladaan ahay marka nin raba inuu nin masaajid ku jiro ee ka suurowdo oo taraawiix ku jiro oo bil ramadaan joogo madax dhulka ku hay xabad ku dhiftay ficilkuu sameeyey inaan sameyn nagama suuraabo sababtoo ah waxaan rabaa in qofkaani dhibka geystay dhibka laga qabtaa la rabaa ee ma aha in dhibkii loo horkaca maaha asna hadduu dilo adna aad dishid oo asna dilo adna aad dishid oo lagu kala tago waa meeshii meel wax ma yeelaan waa macna annagu cadaalad haddii nahay waxaan dee lagu qasban oo cadaaladuna na fadhay qofka dembigiisa intuu la egyahay inaan uga sino oo aan hore u wadin oo balaayo soo wadi waxa uu niyeystay aan ku dilna aan cadaaladuna fadhay taasaan ku shaqay karnaa kaliya waad mahadsan tahay qadadka teleefanada daawadaha qad ku jira assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaala magacaagii halkaad joogto أحمد يوكيك سوق أبو حان مسؤولك ويدين هاي dadka badanaa ciidamada waa wax dadka dhiba sida maleeshiyeedka kooxeedka oo qoryaha wato jidadka taagan oo dadka maarata lacag ka qaadanaya muxuu wax uu qabo waaye intaasaan la yaabana haddana wax eega oo ka tirsan la xukumayo ma arkin haddana mideeda kale dadka asaga xukumayo dhahay shabaabka lagu qabtay badanaa dil toogish iyo xabsiyo dhaadheer u sameeya yacni
shuruudo oo maaragtay sharci oo maaragtay waxyaabo ugu diyaarsan ma jiro yani waxaa arkaysaa qofaa wax lagu soo eedeeyo waxaa leeyahay xabsi daa'in ama dil toogasho yani adduunka taas kama jirto mogtaa qareenana dadka ma leeyihiin oo wax u doodo yani caddeemo ma haystaan waxyaabahaas o dhan in la isweydiiyo ama ogtahay qofka hadduu cadaalad waayo axmed waad mahadsan tahay su-aashaada guddoomiyuhu kaaga jawaabi doonaa daawado kale ayaan raacinaya halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaagii halkaad joogto magacayga waa maxamed diif oo jooga xaafad shirkale. iigu celi magacaagii meeshaad joogto maxamed cabdiladiif oo jooga shirkale. maxamed cabdiladiif oo jooga shirkale. okay barnaamijka haddaa la socotay maxamed gudagal horta guddoomiyaha waa u mahad celinaa shaqada iyo hayaan waa ugu mahad celinaa marka labaad waxaa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay maxkamadda dambiyaasha waa xukuntaa ee xukuumada maa lagu fuliyo si degdega loogu fuliyo maxkamadda dadka way xukuntaa maalinta shaafka waa la xukumaa laakiin xukunka lagu fulinayo ma aragno xukunka waa aragta laakiin iyadoo la fulinayo ma aragtin maxaa loo dejiyay fulintiisa waa mahadsan tahay daawadaha kale ee qaad ku jira assalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaagii halkaad joogto walaalow faa'iiso daahir maxamed aa laydhahaa galbeedka uganda aan ku noolahay ma garat faa'iiso uganda galbeedka uganda soo dhawa faa'iiso walaalow waa talo ma garatay su-aal ma qabo okay kollay madaxda dawladda loo xilsaaray dembiyada inay baaraan horta waa dad islaam oo ilaahay ka cabsanayo ma garatay waa dad baaraya dembiyada dadka qofkii dembi lena ku qaadaya qofkii aan dembi lahaynna aan dushi ka saaraynin kollay saa u malaynayna ma garatay marka nimanka soomaalida caadaystay inay dilaan oo nala ku soo fardhiyey oo dalkeeni dadka uga soo qaxay oo qof kastoo dhaqdhaqaaqaya madaxa ka tooganaya haddii ay ku caddaato inay dembiyada galeen kollay aniga waxaan codsan lahaa oo ma ra'yigaygu yahay inaan sina loo cafinin oo siday dadka u dili lahaayeen ayagana loo dilo laakiin marka hore baaris adag lagu sameeyo inuu qofka dembi galay iyo inuusan galin ma garatay laakiin haddii lagu soo helo waa in asagana waajibkiisa la mariyo konton haddii loo soo qabto kontonka ha loo toogtaan qabaa si loo adnahay dadka caddeeyen anagoo faa'iisa aad baa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan qofka afraad raaciyo oo noqon doona daawadihii ama dhegeystihii ugu dambeeyey dhinaca qadadka teleefanada halo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaagii halka aad joogto cumar saki cabdullaahi oo jooga degmada hurwaay magaalada muqdisho magacaagii igu celi walaal cumar saki cabdullaahi barnaamijka hadda la socota su-aalii talo su-aasheeda waxaa waaye ciidanka oo qalab ciidanka oo soomaaliya oo micnaha oo haddii geystaan dhibaato ciqaabta ka dhalan karta waxaa rabaa inaa ka weydiiyo su-aal gudoomiyaha okay sidaad miyaa ku weydiisay mise waxbaa kuu dhiman okay waa mahadsan tahay su-aashaada waxaan gartay inay tahay haddii qaladaad ay galaan ciidamada iyo ciqaabta ay marayaan jawaabihii gudoomiyaha axmed ayuu ka joogay dee su-aalihiis inaan ka jawaabna umalaynaa dadka lagu eedeynaya inay tuugad yihiin oo burcad yihiin ama shaatiga ciidanka ku qaraabtaan ama ciidanka laftooda ka tirsadaan maalmihii ugu dambeeyey amba labada bil ee ugu dambeysay waxay ahaayeen kiisaska ugu badan oo garsoorka ciidamada la tacaalayay oo garsoorka ciidamada go-aana kasoo saarayay labada shabeelle waxa u badnaadaano dadka laga soo xiray maxamed oo asna deg in loogu fuliyaa qofka xukunka waxay ka dhigan tahay markii dhammaado inuu dhammaadaa waxaa ka horeeya inuu dhammaadaa nidaamka broseska sharciga oo u lahay qofkaasi inuu dhammaadaa xukunka uu noqdaa mid kama dambays ah inuu noqdaa ay ku xiran tahay qofkaasi in fulintiisa ay soo degdegto iyo inay fulintiisa dib u dhacdo markaasay ku xiran tahay sideedaba gabadha faa'iiso waa qaadanaynaa taladeeda baarista qofka marka lagu hubiyo inuu dembiga galay garsoorku inuu mataqaanaa go-aan ka saaro qasab waay baaritaanka iyo siday wax u dhaceen markii maxkamadda laga hor caddeeyo in garsooruhu uu si waafaqsan waxa la caddeeyey oo wax u xukumaa waa waxa meesha loo fogeysiiyey waana qaadanaynaa taladeeda hadduu ilaahay yiraahdo waad mahadsan tahay madaxweynuhu abriil wuxuu amray in la qaado jidgooyooyinka yaala
gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeellada hoose shabeellaha hoose dad ayaa jira loo soo qabtay oo ciidamada qaranku ay soo qabteen waxaa maxkamada la keen dadkaas xaggee ku dambeeyeen su-aal muhiima waaye madaxweynaha marka uu amray kadib waxaa howlgalay ciidamo oo hogaaminayo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ciidamadaasi waxay soo qabteen dad 20 dhaafayo waxayna qaadeen jidgooyin aad u fara badan oo loogu talagalay in dadka lagu dhibaateeyo dadkaasi maxkamada la saaray waatan kuu sheegay labadii mataqaanaa bilood ee lasoo dhaafay dadka ugu badan ee go-aanada maxkamadda ka soo saartay waxay u badnaayeen dadka burcadda ah oo laga soo qabtay labada shabeelle haba u badnaadaan shabeellada hoose u badnaadaan mataqaanaa qofka inta maxkamadda ciidamadu يعني سديد مركي أسبوعي العلي سديد كيس أي مثلا الجوعان كسر صحته أي حلسة تاس أنا كليفيس مرة بين أين صوبان يجين كيسس كليفيس شغال يدور بدن أوجد مركي خاركود كيسس كقاري صوبان نكتة مركي اسمه صوبان نكتة puntland waxay isu soo dhiibay rag ka tirsan nabadiidka dagaalqabayaasha daacish iyo al-shabaab iyo kuwo kale oo ay ciidamada puntland ay kusoo qabteen dagaalo dhexmara iyaga iyo daacish welina waxay sugayaan garsugayaal waaye qaarkood maxaa kala socotaan maxkamadaha puntland idinkasta xiriirkeeda ka dhaxayn maxkamadaha puntland saad ogtahay waxaa ka jirta maxkamad ciidan oo loogu talagalay inay halkaas ka shaqeyso maxkamadaas ciidan waxaa iskale maamulkaasa ay hoos tagtaa xiriir markii laga hadlaayo oo shaksi ah iyo xiriir maamul oo fiican oo aan isweydaarsano marka qaarkood dadka meesha ku xiran ay halkaasi aan ka dalbano ugu dambeeyay isbuuci hadda inaan wacnay oo qof inta baladiina ka fakaday aan u dirnay inay xiraan nagu naga dhexeeya xiriirkeen xiriir fiican waay mar walba shaqaduna waxay ku salaysan tahay dhibaatada meesha ay ka jirto dhibaatadeeda ciidama mataqaana ma badno marka laga reebo maalmihii hadda lasoo dhaafo dhibaato gaartay annagu waxaan aad ugu mashquulsannahay in marka hore la nadiifiyo oo laga qabto dadka dhibaatada ku haya haddii xalaawayaal yihiin iyo haddii ciidan yihiinba goboladan oo halkan ku yaalo oo galmudug iyo hirshabeelle iyo goboladan aadiga taa ida naftigeeda mataqaana jubbaland iyadana sidoo kale waa xiriirkeeda wuu fiican yahay garsoorka meesha ka shaqeeya waan wada naqaanaa oo halkaa markay imaadaan waynu degaan waxaan isdhaafsanaa macluumaadka xiriirkeena xiriir fiican waaye halkaas inuu ka shaqeeyaan waa balanta waa inay halkaas iyagana kasoo shaqeeyaan halkaan laysku keeno in dadka naqdaan dad ay ka barxlaadaan in dhibaato dad argagixisooyaasha dhibaato u geystaan ama ay u geystaan dad shaar ciidan ku qaraabanaya in dhibaato waa laga midaysan yahay waxaa jira mugdiyo kaga jira dadka qaar garsoorka ciidamada iyo garsoorka madaniga idinku maxay kaga duwantihiin maxkamadaha kale ee madaniga ah maxay kaga duwantihiin wasaaradda guddiga garsoorka waxaad hoos tagtaan qaranka hoos tagtaan mise waxaad tihiin dad ku xiran hay-adaha amniga keliya tusaale wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga waxaa rabaa dadka inaad sharaxaad waafiya ka siiso garsoorka ciidamada sida aad magaciisa ka garaysid wuxuu quseeyaa ciidamada qalabka siduu quseeyaa waana taatuu kaga duwan yahay marka koowaad yani dadka la horgeynaya garsoorka ciidamada iyo dadka la horgeynaya garsoorka madaniga ama garsoorka caadiga ah cadaaladda markii la dhahayo cadaaladda dalka waxaa mas-uul ka ah markasta guddi la yirahdo guddiga adeega garsoorka dalka mas-uulka ah mar walba laakiin annaga maxkamadeena maxkamad special waaye maxkamad gaara waaye waxaa loogu talagalay inay ciidamada qaado waxay ka imaataa ciidamaday ka imaataa marka hore aragtideeda waxay leedahay hay-ad la yiraahdo hay-ad oo garsoorka dhisto oo la taliyaal ah oo maxkamada sare ciidamada qalabka sida ka tirsan iyadoo arrintaasi wasaaradda gaashaandhigga sii marayso yay marka dambe ugu dambeyntii madaxtooyada ama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soo saara wareegto ah qofkan inuu garsoor ciidan noqon karo iyo inuusan noqon karin halkaasi ay maraan iyaga guddiga adeeg garsoorka oo maro gudoomiyaha maxkamadda sare dalka halkaas ay maraan meelahaas oo kala duwannaha habka aan u dhisannaha oo kala duwannaha laakiin mar walba cadaaladda dalka marka laga hadlayo waxaa mas-uulka ah mataqaanaa garsoorka dalka mas-uulka ah anaga cadaaladdeenu waxay qusaysaa qayb yar oo ka mid ah muwaadiniinta dalka oo ah qaybta ciidamada ay qusaysaa okay shuruucda marka maxay ku kala duwan tihiin inta badan xukunada aridaan Soomaali baan korka ama xeer caqabaadka Soomaalida xukunno ku qaadaan maxay marka kala duwanaanshaha miisaanka cadaaladeed ama shuruucda aad codsataan maxkamadda ciidamada qalabka sida marka laga hadlayo sharciyada ay adeegsan karto waxaa u banaan dhowr arrin waxay leedahay horta xeer u gaar ah oo la yiraahdo xeerka ciidamada qalabka sida
xeerkaasi wuxuu tilmaamaa dembiyada ay galaan ciidamada keliya tilmaamaa dembigaasi ma dhigaayo xeerka caadiga ma dhigaayo qofka gelaya waa qof ciidan oo qof caadiga ma galo maxkamaddu way adeegsataa xeerkaasi xeerka ciidamada waxay kaloo adeegsan kartaa ho u banaan dembiyadu markay isku dhaf noqdaan oo qof xeerka ciidankana dhigaayo xeerka guudna dhigaayo oo dembi u aqoonsan yahay xeerka guud xeerka ciidankana dembi u aqoonsan yahay maxkamaddu way qaadan kartaa xeerka guudna way isticmaali kartaa xeerkeena way isticmaali kartaa markaas way isticmaali kartaa xeerka guud waxaa kaloo jiro dembiyo uu xeerka ciidanku maadaama special yahay qodobadiisuna ay aada u kooban yihiin uusan dhigaynin xeerka ciidamada oo uu dhigayo xeerka guud oo dhigayo askartu maadaama ay yihiin muwaadiniin ka tirsan dalka waxaa qasab ah markay dembiga muwaadinka dembi ku ahay hadduu uu askarigi sameeyo wuuba kasii daran yahay in lagu qaado xeerka caadiga saas darteed maxkamadda lagu saaro marka waan adeegsanaa anaga labada xeer baan adeegsanaa haddii qof shacaba sida ognahay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada dowladda xeerka public looga qabta haddii marka qof caadi ah oo shacab ah iyo qof ciidan ah ay dooda dhex marto qofka shacabka miida ku idiin soo dacwoonaya mise maxkamadda madanigu dacwoonaya maxkamadda ciidamada waxay qaadahaan ku dhahay dembiyada ay ciidamadu galaan cidii rabaan ha ka galaan dembiyada ciidamadu ay galaan yay qaadaa maxkamaddu qof kale eedeynaya hadduu ciidan yahay oo dembigaas uu galay lagu eedeynayo uu galay qof ciidankiisii qalabkiisii wato oo ka tirsan ciidamada markaas xubinka aan hadduu yahay waxaa qasaba in maxkamadda ciidamada lagu eedeeyo si uu mataqaanaa cadaaladda u maro dad kale waxay qabaan maxkamadda ciidamada qalabka sida inay caqabad kale kusoo korortay hanaanka ay cadaaladda dalka ay tahay taas waxay kaga jawaabaysaa dadka kale anaga taa cagsigeedaan qabnaa toy qabaan too ka duwanaan qabnaa anaga waxaan qabnaa maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way mahdiyeenaan qabnaa in anagana la mahdiyeyaan qabnaa anaga maxkamadda sababtoo ah anaga anagoo mataqaanaa dhalinyaro ah oo jaamacad ka baxnay wax nagu kalifaya ma laha inaan riski galno riskiga waxaan u gelayna waxaa waay inay ummaddan taynaa ay nagu nasato waay waxaan u gelayna waxaa waay inay dadku nabad helaan waay waxaan u gelayna waxaa waay dadku inay qaraxyada ka baaqdaan ay meeshay rabaan isugu imaadaan masaajidoodana ay nabad ku dukadaan dadku inay ilaa masaajid nabad ugu dukadaan ay ka gaaraanne shaqadan anaga waa wadaynaa dowladdu intaynu xil saarto anaga saan u joognana shaqada waa wadaynaa hadduu ilahay yidhahdo su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijka sidee lagu aamini karaa miisaanka cadaaladeed ama xukunada cadaaladeed aada ridaan idinkusa haddaa khalad gashaan iyada la xisaabtamaya waxaan ugula aaminaa anagu waxaan mataqaanaa aan ku shaqayno waa sharcigii mugtahay sharciga hadduu ka qaldamo qofka wax xukumayna nidaam kale loo maru leeyahay oo barsaysaa jiro aniga markaan xukun soo saaray daraad xukun aan soo saaray waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay gef iyo kas iyo isku qabteen kas waayo iyo gef maahane waa inaad sarfaan ka qaadataa asoo beexay maxkamadda ka sare geysataa waxaan rabaa meeshaas inaan ku istaago dee qofka kas waayo iyo ku talagal waayo ku talagal maaha marka laga sheekeynayo oo qofkan dembiga uu ku talageli la dhahayo iyo ku talageli marka la dhahayo ma waxaa laga fiirinaa aniga markaan qorigayga soo qaato ku dhifto sharmaake ilaahay ma qadarey sharmaake aniga aqoon uma lahayn halkaana ma u imid cadaawadna haba sheegina ma u aqaanaba saas meesha malaga saas darteed kas uma dilin maa la dhahaa ku talagal ma ahayn dembiga aan sameeyey maa la dhahaa qoriga aan kugu dhifta ku talagal ma ahayn maa la dhahaa jawaabtaad iyo haataa waxaan filaa in dad badan ay samayn lahaayeen saas oo dad badan iyagu ku andacoonayo aniga qofkaan kas uma dilin ay xabad ku dhifa lahaayeen saasaan filaa dembiyada ku talagalka ah waxaan rabaa inaan caddeeyo dembigan ku talagal waay markii la dhahayo meelaha intee laga fiiriyaa waxaa laga fiiriyaa dhowr arin oo ugu horreysa 3 arin marka koowaad waxaa laga fiiriyaa qofkan dembiga uu sameeyey ma doona asiga ma sameeyey qofkan dembiga inaan qoli soo qaato adiga aan xabad kugu rido yacni aniga ma doonta mise doonisna ma leehay qof waalan ma nahay qof caqliga looga jira ma ahay qof saqiiran ma ahay dee qof wax igu qasbaya ma jiraan inaan ku xabadeeyo xabadaasaan ridi doonis inay jirtaan rabaa qori in xabad laga ridaane way kasii daran taho qori shaqadiisa waa shaqo dheer oo in laga soo bilaabo in xabad la helaa oo qasnad la geliyaa oo qori la geliyaa oo la koobkareeyaa oo la jiheeyaa lagu aadiyaa oo rashid la qaataa waa shaqo dheer qori mataqaanaa arrintiisa inaan adiga qori kugu aadiyo oon xabad kugu rido aniga ma doortay waxaan doortay inaan kugu rido midda labaad ma tahay wax dili kara ma yihiin ugu dambeyntii adiga ma dhimatay intaas marka la helo dembiga aniga aan laygu aaday karo muxuu noqonaa mid ku talagal muxuu noqonaa in aniga laygu aaday sababtoo ah wax kalifi kara ma jirto inaan adiga xabad kugu ridaa ma jirto wax kalifi kara marka dadku waxaa la rabaa inay markay ka hadlayaan ku talagal ay hawadooda raacine ay raacaan nidaamka sharciga inay raacaan la rabaa
anaga garsoor ahaan anaga waxaan aaminsanahay go-aanada aan soo saarayno inay yihiin mid huban waxaan lagu qaadaa garsoorka soo u qaldamin 3 qofood dacwada qaada mar walba maadaama dacwada qaabay tahay 3 qofood waxaa loogu talagalay in markii oo go-aanada ay shabahaan in laba kamid ah meesha isku raacda la raaco oo aqlabiyada la raaco go-aanadii aan soo saarnay isbuucan waxay ahaayeen go-aano ay 3 garsoorba isku raaceen inay yihiin sida aan soo saarnay ay yihiin isku raaceen ciddii dee waxaa go-aanka nasiib wanaag ku qoran ciddii aan ku qanacsaneyn waxaa u fulan raacfaan inay raacfaan ka qaataan dee wixii kale oo soo kordho oo cadeymahan maxkamadaha kale ay u geeyaan si oo dee mar labaad loo fiiriyo annaga go-aankeena markaan xukunno qofka meel allahi in laga xukumay maaha waxaa u fulan raacfaan waxaa u fulan dee dhibana hadduu jiro dhibanihi naftigiisa in la xaliyo xaqiisa la xaliya waxaa u fulan aad baad umahadsan tahay daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynaya iyo dhegaystayaal barnaamijkii kulanka toddobaadka aynu kaga hadalnay shaqada ay qabato maxkamadda darajada koowaad ama shaqooyinka ay qabtaan hay-adaha cadaaladda ee ciidamada qalabka sida ee dalka waxaana toddobaadkan barnaamijka igala qaybgalay oo marti ku ahaa gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waan kaaga mahad celinaya waqtigaaga barnaamijka intaa barnaamijka mid ka xiga ku kulmi doono aniga iyo Faysal Muuse iyo injineer Fuad iyo bunka waxaan kaga tagaynaa amaana Allah iyo nolol kulanta Ramadan Kareem. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.